Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan kusoo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. Kulan wanaagsan mar kale. Kusoo dhawaada casharka tobnaad ee Adobe Premiere Pro. Casharka tobnaad ee Adobe Premiere Pro maanta waxaan kaga hadli doonaa sida uu u muuqdo muuqaalkan. Haddaba sidee noqonayaa title-ku? Okay, waxaan tagaynaa qaybta title-ka. Waxaan soo qaadanaynaa title-ku waan soo qaadanaynaa, laakiin hadda waa noo yaalaan title-lada halkaan noo yaalaan aan samayn lahayn. Waxaan soo qaadanay title noocaan ayaan soo qaadanay. Halkaan dhex noo dhig. Waxaan doonaynaa inuu meesha dhex ka muuqdo kadibna uu tago. Title-kan sida u jeedaysid waxa weeye title color gaduud leh. Hoos noogu soo dhig noogu qurxoonaado ama meeshiisa noogu daa. Hadhow mid kale hoostiisa ka samaynaynaa meeshiisa noogu daa. Okay, qoraalkii aan ku qori lahayn baan rabnaa inaan soo qaadano. Title baan soo qaadanay. Waxaan niri title halkaan noo keenay. Waxaan rabnaa qoraal marka noo soo qabo far. Halkaan click noogu sii. farta horta waan tiida soo doorano kadibna waan farta soo doorano. Halkaan ku dhufanid kadibna waxaan leenahay Ali Yariso ninka waan ugu yeernay Ali Yariso. Tusaalaan kala jeednaa. Kala bixi marka fartu say xoogaa u kala jeedanto. kadibna hoos soo dhig. Halkaan ku aadi. Okay, intaasay noo joogto. kadibna madowgiisa noo ahaado mise jaalan ka dhignaa. Jaalan ka dhigana colorkeeda. Color waxaan dooranay jaala ayaan dooranay. kadib markaan jaalaha dooranay kan waa iska kansalnay. kadib waxaan soo qaadanay Ali Yariso korkeeda ayaan keenay. Okay, marka halkaas noo joogto waxaa qaybtan oo kala fogeynaynaa. Waxoogaa waan kala baxsanaynaa. Shaashadan wax yar baan kor iskaga yareynaynaa si title-ku si fiican noogu muuqdo. Okay, sidaa markay noo joogto tani waa noo samaysan tahay. Kan waxaan doonaynaa inuu xagga ka soo baxo marka. Xagga inuu ka soo baxo si muuqaalka uga jeeday. Halkaan ayaan imaanaynaa. Kana xoogaa usoo yareynaynaa. Halkaas ayaan tagaynaa. marka halkaas tagno ma hoos ka soo baxaya in hoos ka soo baxaan rabnaa. Halkaan markaan joogno waxaan furaynaa qaybta ayaan furnay. qaybta markaan furnay waxaan niri waxaan ku dhufanay calaamadda aan fikta ka saarnay. meesha ka soo galay qoraalkan waxaan niri calaamad kale noo saar. labada calaamad dhexdooda rabnaa ku maamulno marka. calaamadan markaan nimaano ayaa kan siira ka dhigaynaa. Okay, kan 100% baan ka dhigaynaa. calaamadan hore markaan joogno markaan afkeeda joogno maxaa leenahay waxaan ka dhigaynaa halkaan aan click siinaynaa. siiraan ka dhigaynaa. siira marka macnaheedu waa maxay? ma muuqdo qoraalku. meeshan title-ka ma muuqdo background-kiisa. saamku u soo kaco soo baxaya soo gaduuda. markuu si fiican u soo baxo ayaa waxaan leenahay farta soo muuqata iyaduna. farta marka waxaan leenahay bilowga hore farta laftigeeda halkaas aan gujinaynaa. halkaan markay saa noogu muuqato ma waxaan leenahay position-ka ayaa fikta saaraynaa. position-ka fikta saarnay dhibicdaan nala siiyey. xaggaan u durki wax yar halkaan gee. halkaan markuu tago wax yar iyadoo xag u soo durki wax yar. halkaa way joogtaa soo ma. tan kale tan halkaan leedahay meeshaan wax yar marka u durkisid
waxaan leenahay masana dhibicda noogu celi halka marka joogto xagga u noqonaynaa tii hore tan tagaynaa dhibicdan hore meeshadan tagaynaa kadibna waxaan leenahay qoraalka xagga aad xaggaas aad halkaas aan dhigaynaa xagtanaan wadaynaa ilaa uu meesha ka baxo bis saasaan leenahay marka saa usoo dego xagga kasoo gala ma jeedaa meeshu dhammaadkaana waxaan leenahay kusii dhammaanayo waxaan saaraynaa positionka ayaa ficta saaraynaa masana waxaan saaraynaa meesha uu ku dhamaado ficta ka saaraynaa kaleeto baan dhibic kale sana dhag siinaynaa labada dhibcood baan haysanaa dhibicda dambe anoo joogno waxaan leenahay dhibicda dambe marka la gaaro xagga u dhamee muuqaalka farta wuxuu leeyahay xagga saas farta u joogtay way xagga ka baxda big saas u baxay xaggaasi ka baxda saa markuu soo dhowdahay bay xagga ka baxaysaa marka kana hadha marka kanina waxaan leenahay markay fartu baxdo halkaas fartu markay sii socoto waa raasna inuu naxuus noqdo naga ka bilowdo halkan xawaa yar kasoo yare halkaa markay joogto fartu sii baxayso ayaa waxaan leenahay ka dhibicda saar calaamada sii halkaan daa dhag siinay meeshay taaganta usha wuu noo calaameynaya dhammaadkeeda meesha aan gee ku dhammaato waxaa tiraa masana dhibicda sii midda dambe markaa marayso waxaa ka dhigtaa midda dambe markay joogto siira ka dhig waan leenahay tan dambe markay timaado siira ka dhig okay waxaa arkaysaa halkaa markuu maraayo fartu si ciiray noqonaysaa wayna tirtirmaysaa okay kaas waxaan sameynay title qofka magaciisa sameynay okay marka midee title qof magaciisa inaan midaynaa rabnaa waxaan leenahay control waxaan leenahay right click nesting kadib waxaan leenahay magac mga hal xabaan ka dhignay kan hoosena saan fursad baan u helna kana waxa ka dhigtaa nesting kala ka dhig nesting kana waxaan niri muuqaal baan ka dhignay hoos buu noogu yaraaday kanina kor u kacay marka hoostaan rabnaa laba title kala soo dhigano okay waxaan rabnaa laba title aan soo dhigano maxaa sameynaynaa title baan gujinay waxaan niri waxa noo soo qaadaa title hanoo ahaado title musaa noogu soo baxay waxaan soo qaadanay caawada afrigiiska soo qaadanay waxaan niri halkaa tii hore ku aadkeeda waxaan niri waxa ka dhigtaa ship yar noogu samee oo colorkiisa waxa ka dhiganaa jaalo nooga dhig colorkiisa jaalo ayaan ka dhiganay kadibna okay waan iska niri kadibna naga cancel kan jaalahana noo soo qaad halkaan noo keen muuqaalka hoostiisa noo keen halkaa markuu muuqaalka hoostiisa yimaado taasi markay soo dhamaystiranto waxaan rabnaa inay ka hooseyso marka tanaa weyn marka waxaan rabnaa ha weynaato qoraalkeeda waan rabnaa inaan soo helno qoraalka hore soo diyaarsanaa waan soo qaadanaynaa qoraal hore gaduud ah jiray kanaa soo qaadanaynaa korkeeda saaraynaa waxay noqotay qoraalkii inuu hoosteeda ku qoran yahay waa kan qoraalkaas oo gaduudan qoraalka gaduud weyn waxaan doonaynaa marka in qoraalkaas meesha uu joogo uu line-ka kor ku aasan uu soo galo waaye waxaan leenahay marka title-kii ku dhufo dhinaca halkan fur waxaa sameysaa halkan calaamadda ficta ka qaad kadibna waxaa tiraa xoogaa yaree markuu yaraado waxaan leenahay positionka ficta saar positionka kan horta ku dhufo waxaa tiraahdaa control iyo d isla qabo control d marka waxa weeye inuu si ciira hoos uga soo baxo tanaa ku dhufanay meesha ay fartankiisa soo bixin ayaan tagnay waxaan niri position calaamadan saarnay meesha ka bilaabataan nimid waxaan niri masana calaamadda noo saar meesha ka bilaabato halkaan ayaan nimid marka halkaan nimid waxaan niri hoos usoo bixi halkaan keen kadibna waxaa tiraahdaa
kadibna xoogaa kii kala bixi aan badnayn, xoogaa yar oo aan badnayn saa u kala bixi. Halka calaamadda ficta noo saar, calaamadda ficta halkaan saarnay. Halkaana la joogo waxyar calaamadda hore usoo qaad, waxaan leenahay misana dhibic kala saar, tan dambe tag, kan dambaa tagnay. Marka saa usoo baxday baa waxaan nidhi soo kala bix, yani xoogaa noo weyne, waxaan nidhi xoogaa noo weyne. deetana waxaan sameyneynaa marka saa noogu soo weynaatay marka halkaa joogto wax yar baa naga qaldamay. Halkaa markay fartu saa usoo baxdo way naga noqonaysaa, laakiin inay noqoto ma rabno. Positionkan weeyaan, positionka waa kalsanaynaa. Marka aan kansasho ayaan dib ugu noqonaynaa. Marka halkaa markaan joogno waxaan leenahay positionka ficta noo saar. Markaan halka ficta saarnay misana halkaan dhibicda saaranaynaa positionka laftigiisa. Marka halkaa saarnay ayaan hoosaa usoo kaxaynaynaa. waxaan rabaa inuu hoosteeda yimaado, halkaa meeshaan la rabnay. kadibna waan tegaynaa meesha dhammaadkaan tegaynaa. halkaa markaan joogno waxaan leenahay meeshiisa ha jooge. waxaan sameyneynaa marka halkaa joogno qaybtaana imaanaynaa, qaybta hoose weeyaan, waa furaynaa. markaan furno ayaa waxaan leenahay iyadana waxaad noo saartaa dhibicda noo dhig noo sii. waa saarnay, kasii dib usii deg. halkaa marka joogtana waxaan leenahay dhibic kale noo saar. kadibna waxaad tiraahdaa halkaa siir ka dhig, marka ugu dambeysa halkaa siir ka dhig. waaya sidaas ayaan u sameynay. halkaa marka joogto maxaa soo baxaya? saas usoo baxay muuqaalkii, qoraalka kasoo hoos baxay. qoraalka halkaan joogaa, waaya qoraalka halkaas joogaa. halkaas qoraalku joogaa, qoraalku halkaas joogaa. tana xoogaa kor nooga kacaysa. okay wax yar waaya saasay u samaysan tahay. kadibna saas isku mar bay dhammaanayaan. okay sidaasaa titleka u samayn kadhaa. adigu marka meelaha intaana isticmaalaysaa, saasaa ku quruxsanaysaa. cashirka 10aad ee amaanta kaga helayn sida titleka loo sameeyo intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. wixii su-aala way la soo wadaagi kadhaa. Ikhlas Academy Technology casharada taxanaha iyo Saad Naasir Axmed Jaamac. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe channelkan una share gala asxaabta kale ee doonaysa inay bartaan film editor.